بعد dhammaan muslimiinta guud ahaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba waan idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Caawa ficlan maanaan ku tala gashanayn inay Ramadaan tahay maxaa yeelay macluumaadkan haynay inay bishu caawa tahay 28 ayaan ku tala gashanayn. laakiin su'aalo badan baa hadda igu soo dhacay oo meelo fara badan la iga soo weydiinayo caawa ma Ramadaan baa. saas daraaddeed waxaan go'aansaday inaan kelimo yar ka idhaahdo. caawa oo khamiis soo gashay caalamul islaami intiisa badan Ramadaan uma aha, soon uma aha. maanta 28 bay u ahayd caalamul islaami intiisa badan. berri baa 29 u ah oo khamiis ah. habeenka jumcadu soo galaysana caalamul islaami intiisa badan waxa uu soo galaya 29 baa u dhamaatay. habeenka jumcadu soo galaysa 30 buuxa u ah. saas daraaddeed galabta khamiista qorraxdu markay dhacdo ayay bisha raadin doonaan cidda aragtida ku soonta. ciddii iyagu falag iyo xisaab ku soomana meesheeda weeye. macluumaadka aan hayo marka dowladaha qaar ka mid ah sida Turkiga, Ciraaq oo kale, Masar meelaha qaarkood waa ku arkay ayaa maanta 29 maanta oo Arbaca ah ayaa 29 taqriiban xisaabsanayay. iyaga markaa berri 30 buuxay u noqonaysaa. haddayna galabta arkin falakiyiinta culimmadan falaguna waxay leeyihiin galabta oo Arbaca ah in la arkaayo bisha adduunka meel laba suurtagal ma aha bay leeyihiin, wallahu aclam. iyaga markaa qolyaha aan sheegay khamiistaa 30 buuxa u ah, jumcadana toos bay u soomayaan. caalamul islaami intiisa badan dowladaha khaliijka ilaa dowladaha bari jira Pakistan ilaa Indonesia ilaa Malaysia ilaa dowladaha muslimiinta Afrika ku yaala caalamul islaami intiisa kala badan waa sida loo badan yahay. maanta oo Arbaca waxay u ahayd 28 bay u ahayd. berri oo khamiisana waxay u tahay 29. berri galabnimadii qorraxdu markay dhacday bisha raadinayaan cidda aragtida ku soonta. hadday arkaan jumcada ayay markaas soomayaan. hadday arki waayaanna sabtiday markaas soomi doonaan. waa qolyaha aragtida ku sooma weeye. maanta oo marka Arbaca ah bishii in la raadiyaba qorshahanaga ma ahayn, laanna xisaabta iyo aragtida aan yani wax weeye ku xisaabtamaynay maanta ma ahayn in la raadiyo. ilaa ay haddana wax soo sheegay ma hayno. dadkana waxaan u malaynayaa waxaa khalday oo caawa inay muxuu ahaay telefoon iska soo daba dhacaan waxaa kalifay laba qodob. qodobka koobaad horta waxa weeye kalendarka muxuu ahaay ayaad wuxuu tilmaamayaa iyo saacadaha la wata iyo inay bisha maanta 29 tahay. arrintaasina waxaa ka aragtida bisha waxaa la arkay oo aragtida rasmiga la xaqiijiyay waxay ahayd galabtii Shacbaan baan ka hadlayaa. Shacbaan araggii la arkay waxay ahayd galab Arbaca ah habeen khamiisa soo galayso. sidaa marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa ay maanta 28 ahayd, berri oo khamiisana 29 tahay. waxa aragtidii iyo kalendarka xisaabta ku qoran ama saacaduhu ku tusayaan way isdaba mareen. aragtidaa la raacayaa. qodobka labaad ee dad badan qalday maqtac video ah oo Al Jazeera ay leedahay oo la soo gooyay dadku isu dirdireen kaas maamaya ka hadla jumco iyo khamiis. maqtacaasna waa khalad oo ma ahayn hadda ma aha sanadkan ma aha. wuxuu ku saabsan yahay sanado hore oo tagay buu ku saabsan yahay. markaasaa inta la soo gooyay baa waxaa laga dhigay in sanadkayaan. arrintaasina waa khalad labaad oo dadka khaladay. marka murtidiisu waxa weeye markaan soo gabagabeeyo markaan idla hadlayo waa habeen ay khamiisi soo gashay. Arbaca
xaday taariikhdana ay tahay 22-ka bisha Abriil ay tahay caawa oo khamiis ah lagumana tala gashanayn in la raadiyo wax sheegayna ma hayno sidaas daraaddeed berri oo khamiisa galadeeda oo habeen jumca soo galayo ha la raadiyo bishii araggeeda ha la raadiyo caalamul islaamiga ha laga warhayo warbaahinta ha laga warhayo ciddii arki karto ka joogta laakiin hadda wax soona wax ma hayno warkeeda marka sidaasi iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala nabadii aynugu gaadhsiiyo bisha barakaysan ee Ramadaan tabaaraka wa tacaala goortay dhalato haynaga dhigo kuwa ka faa'iideysta rana tabaaraka wa tacaala khayrkeedii wanaageeda hayna waafajiyo hana inaga aqbalo aad baad u mahadsantihiin wajazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh